burburka habnololeedka reer galbeedka ayaa hadda isu bedelay qalcad hubaysan oo diidan cid kasta oo la tartamaysa ama bedelkeeda qalcad leh soo jiidasho u gaar ah. Xornimada Ameerika iyo Yurub oo ay ku jiraan sinada la ogol yahay, xorriyadda xiriirka galmada, khaniisnimada, qaawanaanta, naadiyada khamaarka iyo filimada qaawan ma rabaan nidaam xadidaya xorriyadahan, xataa haddii nidaamkani uu ku yaallo dhinaca kale ee Atlantic, gaar ahaan hadduu nidaamkani ka dhigan yahay ilbaxnimo lagu tartamayo. Wuxuu leeyahay taariikh hore iyo taariikh u gaar ah. Isku dhucu waa masiirka qof kasta oo isku daya inuu islaamka ka saaro qobaabada masjidka oo uu ku raadsado. Mararka qaar dagaalku wuxuu ka bilaabmaa albaabka guriga oo ay isku dhacaan dad muslim ah oo qoyska laftooda. Aqoonsiga reer galbeedka, aafooyinka waagan waa in horumarka cilmiyeed ee yaabka leh ee reer galbeedku ay ku guulaysteen oo ay wada mijaxaabiyeen kuna dhex qaadeen culayska nolosha reer galbeedka. iyo in badan oo inaga mid ah ayaa bilaabay in aan indhaha ka furanno nolosha ee musuqmaasuqa iyo xumaanteeda aragtida walaalaheen cilmaani. Haddaba islaamku siyaasadda wuxuu bilaabay inuu ka dagaalamo laba arrimood oo kala ah inuu dadkiisa iyo shisheeyaha isku mar la dagaalamo. Xogaha kooban ah waxaa laga soo dheegay ama aan ka soo xigtay buugga Siyaasadda Islaamka iyo Dagaalka Soo Socda. Dr. Mustafa